السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتين بآدي بدن سلامية سلامتك بعدي waxa aan rabaa maanta inaan halkii kasii ambaqaado casharkii barashada higaada carabiga. waxa aan kusoo jirnay ama aan soo qaadanay casharka afraad oo isagu markaasi ahaa casharka ugu adag. aynu kusoo jirnay in muddo 10 cashar aan kasoo diyaarinay. casharkaasi waxa uu inaga saacidayaa qaabka la isugu xidhayo ereyada. qaabka la isugu xidhayo ereyada waxaan ka wadaa qaabka tusaale ahaan kelmadan oo kale ilaa halkaas oo dhan la isugu xidhay ayaa loola jeedaa. marka ereyadan oo dhan qaabka la isugu xidhayo waxaa laga soo baranayaa casharka 10aad, yacnihii sida alifkan gooni loogu istaajiyey, sida laankan iyo alifkan maxaa la isugu xidhi waayey, وسال isugu xidhi waayey, maxaa sababay in xarafka halkan inugu qoran laanka iyo xada la isugu xidhay. waxaas oo dhan waxaynu kusoo baranay casharkeennii afraad. casharka afraad waxaan ka sameeyey 10 cashar. insha allah waxaan rajeynayaa in halkaasi dib loogu noqon doono. maanta waxaan baran doonaa wax loo yaqaano alfatxa. fatxa maxaa loogu yeedhaa luqadda carabiga, luqadda soomaaliga maxaa la dhahaa? yani saas oo kale waxay noqonaysaa fatxadu kordhiga. kordhiga maxaa loola jeedaa? kordhiga waxaa loola jeedaa waxaan yar ee dusha ka saaran xarafka ayaa loola jeedaa. waxa yar ee dusha ka saaran ayaa loo yaqaanaa. marka waxaasi inagu kordhig baynu dhahnaa. kor xarafku markuu sidan yahay oo kan yahay, wixii kor ka saaran ayaanu kor iyo dhig baan dhahnaa. dhiguna waxa weeye wax la dhigay oo kale. marka kor dhig baan dhahnaa. mararka qaarkood lahjadaha waxaa loogu yeeraa kor dhow. marka mar walbaadu wuxuu tilmaamayaa xarafka inuu kan yahay waxaa dusha sare ka saaran waxa weeyaan korkiisa. marka kor dhow ama kor dhig labadaba waa isla midkii. talabaad waxa weeyaan waxaan waxaa loo yaqaanaa xaraf, waxaan waxaa loo yaqaanaa dhibic, waxaana waxaa loo yaqaanaa xarako. saddexdaa weynaan kala fahanaa: xarako, xaraf iyo dhibic. marka mararka qaarkood dhibcaha ayaad ku yara khaldamaysaa, mararka qaarkood xarafkii baad garan waayeysaa, mararka qaarkoodna xarakada ayaad u garan waayeysaa. xarakadu dhowr qaab bay u qaybsantaa. xarakadani waxay u qaybsantaa jiitin baynu sameynaynaa. jiitintaasaan sameynaynaa wixii korka sare ka mara waxay noqonaysaa tusaale ahaan kordhig baa la dhahayaa. hoosta wixii ka mara hoos dhig baa la dhahayaa. jiitintaas waa xarafkii baan ka mataalay. xarafku markuu sidan yahay, wixii dusha sare ka mara waxaa kaasoo kale kordhig weeyaan. waana dusha sare ka mariyay kordhig weeyaan. wixii hoosta ka mara xarafka waa hoos dhig weeyaan. waxaa jira wax kale oo sidaas hore qaabkaas kale u qorma oo godniin loo yaqaano. waxaa jira isagana mid saas oo kale loo yaqaano oo la yiraahdo reebniin baa la yiraahdaa kaasna. waxaa jira isagana mid saas oo kale u eg shad baa loo yaqaanaa. shadka markuu saa yahay waxaa jira laba kordhig baa jira oo saas oo kale ah, laba hoos dhig baa jira iyagana. waxaa jira laba gudniin baa jira, laba gudniin ayaa jira. intaas koley inahaas baan kusoo gabagabeynayaa. noocyadaas oo xarakada ah waa xarako waxaan ka hadlayo, waxaas yaree dusha ka saaran oo kale weeyaan. noocyadeedu waxa weeyaan meelahaasay adigu kusoo yani ay badankoodu ay yihiin. marka haddii inta aad baratid waa adigoo bartay xarakadii oo dhan adoo bartay. xuruufta horaan usoo baranay waa alif wax male, baa hoos kale, taa korku labale ilaa iyo ya hoos ku labale ayaa loo yaqaanaa xuruufta. iyadana halkaasaa lagu bartaa. dhibcahana sidoo kale isla xuruuftaasaa lagu bartaa. marka waxa ugu daran ee inta badan la barto waa tan weeyaan. marka maanta waxaan qaadanaynaa kiisa ugu horeeya, casharkiisa ugu horeeyaan qaadanaynaa oo kordhiga ah. marka waxa lagu dhawaaqo hadiiba uu waxaa dusha sare ku wato
waxaa loo yaqaanaa alifkii wuxuu noqonayaa a buu noqonayaa, ba buu noqonayaa, ta, tha, ja. yacnihii jiim lama dhahayo, yacnihii haddii waxaa sare u wato ja baa la dhahayaa. xa, kha, da, dha. labadan midna waa da, midna waa dha. yacnihii carabkaaga ayaad keenaysaa foolashaada hore ayaad dusheeda saaraysaa, ka bacdina saasaad ugu dhawaaqaysaa. kan waxaa loo yaqaanaa ra, za, sa. waxaa inoo xigaa sha, sa, da, da, dha, ca, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. casharkaasi qaabkaas ayuu ku baxayaa. kan waxaa dhahaysaa ka baa dhahaysaa, kan la baa dhahaysaa. laam iyo laan midkoodna dhihi maysid. haddii waxaa yar uu leeyahay waxaa loo yaqaanaa laam baa loo yaqaanaa. halkan miim may hadda maaha. haddii waxaa sare leeyahay ma waa loo yaqaanaa ma. haye kanna muxuu noqonayaa? haddii waxaa sare leeyahay na baa la dhahayaa na. nuun may. nuunku waa markaanu waxba aanu wadan, saas kale qaabkaas oo kale yahay. inkasta oo aanu inta badan aan yacnihii markaas saas aan leeyahay oo kale aan yara diido oo ay waajib tahay in wax la kordhigo, ma jiro wax saas oo kale ah. haddii kale reebniin buu noqonayaa, automatic reebniin buu noqonaya, sida qur-aanka aan ku arki doono. qur-aanka markaynu kitaabka soo furno ayaynu ugu tegi doonaa nuun aan waxba lahayn waxa loo yaqaano. waa reebniin wey, waa la reebay oo kale weeyaan. marka haddii waxaa sare leeyahay waa na. haye wow miya? may, waa wa weeyaan. haye tana waa ha weeyaan, tana ya weeyaan. qaababka weeyaan. horeynu soo qaadanay qaababkay soo raacraacaan. ya-du qolada ay la safato horeynu soo tilmaamnay, laakiin waxba hadda faahfaahin saab dheer u sii geli mayno. insha allahu tacaala casharka xiga ayaynu qaadan doonaa oo saasaynu ku socon doonaa haddii allah idmo. waxaynu ku socon doonaa insha allahu casharka xiga insha allah. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh.